السلام عليكم أصحابي سو dhawaada maanta waxaan rabaa inaan ii tusiyo sida u samaysan kartid nus kiilo xalwo haddaa xalwo craving aa ku haysid muujada ama haddii dadku soo socdaan maasha allah xalwadan very easy waaye sidaan u sameeyey koley noola daawada videoga bilowga ilaa iyo dhammaadkiisa insha allah ka faa'iidaysta step by step waan ii tusin doona hadduu ilaahay idmo waa kasa marka la socdo nus bakeeri oo biyo ah iyo 2 xabo oo shaahiga baagiisa pop in the microwave meeshana 4 bakeeri oo biyo ku soo shubana ounces ahaan waan ugu sheegi doonaa hadhoode 4 bakeeri biyo waxa waaye 32 ounces waaye hadda scale aa qabtid waa kasa waraangahan aan kan isticmaalayo corn starch waaye brand kan waaye waa nus bakeeri ounces ahaana I guess 2.2 ounces waaye so bakeeriyaasha iyo scale-ka ma isku imaanaya so markasta measuring samaysa sokortana 2 bakeeri ayaan doonaynaa akasa so 16 ounces aan soo qiyaasa sokorta 2 bakeeri waa 16 ounces waa kana 16 fluid ounces waaye sokorta haddana digsigaan kusoo shubanaynaa tan waraangadii waaye shaahigii biyihiisaan kusoo dhex qasa biyihii diyaar waaye sokortaan kusoo dhex shubanaynaa xalwadan color ma ku darsanayo aniga because food coloringka all the chemical waxaas laga sheegay so it's gonna be color la-aan hadduu ilaahay idmo waa kasa waa kana boil noo sameynooya so I think processkan hal saac u qaadanaysa u eg tahay so soo laabanay 5 daqiiqo ka bacdi waa mix gareyne dadka subag ay ku darsan badan ani maanta subag ma haystay bas liidan ku darsanaya nus koob camal waaye in yar ugu soo darsan doona soddon daqiiqo ay saaran tahay hadda waxaan kusoo darsanaynaa saliidii intii ugu hortay bakeeriga ka bacdina waxaan kusoo darsanayaa heel oo shiidan iyo joos oo shiidan ama nutmeg ka bacdina waa isku mix gareynaynaa xalwada waxa waaye 30 daqiiqo ugu dambeys muujada inaa si fiican oo mix gareysid haddii kale digsiga kaaga dhige 30 daqiiqo ugu horeysay ma kor istaagnaynin 5 daqiiqo ugu soo laabanaya ka bacdina xalwada waxaa ku dareemay inaad diyaar tahay way ku soo raacay ma garatay haddii hal mar digsiga ay kasoo foqdo diyaar waaye insha allah kule haddaa jeclaateen recipe-gan like noo gareeya repost share iyo favorite-ka noo saar marka waa kasaa thank you guys